Salaamaantiin asxaabta ku soo dhawaada barnaamijkeena 1 by 1 oo nagu soo qaadano wararka iyo warbixinada ugu dambeeyay. Waxaan eegi doonaa wararka ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo sidoo kale kulamada ugu muhiimsan ee maanta la ciyaari doono horyaalada ugu waaweyn qaaradda Yurub. Ugu horreyntii haddaynu ku bilowno kooxda Chelsea ayaa isku dayday inay tartan ula gasho kooxda Arsenal kaasoo ay doonayso ciyaartoyga hadafka u saarnaa toddobaadyadii lasoo dhaafay kooxda Arsenal ee ahaa weeraryahanka u ciyaara kooxda Shakhtar Donetsk iyo sidoo kale xulka qaranka Ukraine Mikhail Modric. haddaba waxaa la sheegay kooxda Chelsea haddii ay arrinka ku fashilanto ay ku guuleysan weydo kooxdu inay ka horqaado kooxda Arsenal weeraryahanka Mikhail Modric inay kooxda Chelsea diyaarinayso ciyaartoygii beddelka u noqon lahaa ay la soo wareegi lahayd haddii ay ka qaadato ama ay kala horwareegto kooxda Arsenal ciyaartoyga Mikhail Modric. haddaba waxaa jirtay kooxda Chelsea inay isku dayday mar hore inay la soo wareegto ama sidoo kale wada hadal la furto kooxda Shakhtar Donetsk kaasoo ay ku doonayso ciyaartoyga iyo sidoo kale weeraryahanka isha u saaran ama sidoo kale ay wada hadalka kula jirtay kooxda Arsenal. balse kooxda Arsenal ayaa la sheegay hadda inay isku dayayaan sidoo kale ay kooxdu dalab kale oo gaadhaya 8 milyan oo euro ku gudbin doonaan ciyaartoygan. haddaba iyadoo taasi ay jirto ayay kooxda Chelsea waxay sameynaysaa inay raadiso ciyaartoygii beddelka u noqon lahaa Mikhail Modric haddii ay ku guuleysan weydo la soo wareegidiisa ciyaartoygan oo ku dhow ku wareegidda ama ku beeridda kooxda Arsenal. haddaba sababta kooxda Chelsea ay ula soo wareegiso ciyaartoyda iyo sidoo kale weeraryahan ayaa waxay tahay kadib markii uu batay dhaawacyada ciyaartoyda kooxda Chelsea gaar ahaan ciyaartoyga Sterling, Pulisic iyo sidoo kale ciyaartoy kale oo kulanka ugu dambeeyay kooxda Chelsea ciyaartoy horyaalka Ingiriiska kaasoo ay garoonkeeda Stamford Bridge ku martigelisay kooxda Manchester City. waxa uu dhaawac soo gaaray qaybta hore kulanka ciyaartoyga Raheem Sterling iyo sidoo kale Christian Pulisic. haddaba sidaa darteed kooxda Chelsea ayaa isku dayi doonta ama hadafka labaad ciyaartoyga beddelka u ah ayaa waxa uu yahay ciyaartoyga khadka weerarka uga ciyaara kooxda RB Leipzig iyo sidoo kale xulka qaranka Spain ee Dani Olmo. ciyaartoygan ayaa xulka qaranka Spain waxa uu ciyaaray koobka adduunka sidoo kale ciyaartoygan waxa uu 19 gool ayuu dhaliyay kooxda RB Leipzig 22 goolna waa uu caawiyay isagoo ciyaaray 106 kulan kooxda RB Leipzig tan iyo markii uu ku soo biiray sanadii 2020. ciyaartoygan sidoo kale waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii u ciyaaray xulka qaranka Spain oo Olimbikada sidoo kale ciyaartoygan waxa uu ka mid ahaa ama markii hore waxa uu ciyaari jiray kooxda ka ciyaarta ama ka dhisan wadanka Croatia ee Dinamo Zagreb. intaa ka hor ciyaartoydana waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii ka soo baxday akademiyadda kooxda Barcelona ee Camp Nou. haddaba ciyaartoygan Dani Olmo ayaa la sheegay inuu yahay hadafka kooxda Chelsea haddii ay kooxdu ku fashilanto ama ciyaartoyga Mikhail Modric uu doorto ku biiritaanka kooxda Arsenal oo ah kooxda ugu dhow ciyaartoyga la wareegi karta sidoo kalena ah kooxda wada hadal kula jirta ilaa hadda kooxda Shakhtar Donetsk. ciyaartoyga Dani Olmo ayaa waxaa noqon karaa beddelka maadaama ciyaartoygan Dani Olmo uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu fiican sidoo kale ay qiimo aad u dhexdhexaad ku heli karto kooxda Chelsea. haddaba ciyaartoygan Dani Olmo waxa uu dhamaanaya heshiiska uu kula jiro kooxda RB Leipzig sanadda 2024 taasoo macnaheedu yahay bilowga xilli ciyaareedka cusub waxay kooxda Chelsea awood u yeelan kartaa ciyaartoyga Dani Olmo inay la soo wareegto sidoo kale haddii hadda ay wada hadal la furto kooxda RB Leipzig kooxda Chelsea waxay ku khasbi doontaa kooxda RB Leipzig in ciyaartoygan qiimo macquul ah ay kaga iibiyaan haddii ay noqoto 40 ilaa 50 milyan oo euro. sidoo kale ciyaartoygan xagaagii hore waxaa isku dayday inay la soo wareegto kooxdii hore u ciyaari jiray ama akademiyadeeda ka soo baxay ee Barcelona. sidoo kale kooxda Manchester United oo baadigoob ugu jirta weeraryahan ama sidoo kale ciyaartoy ayaa hadda waxaa la sheegay ciyaartoyga Memphis Depay inay doonayo ku biiritaanka ama kusoo laabashada kooxdiisa hore ee Manchester United. balse ciyaartoygan ayaa waxaa la sheegay kooxda Barcelona inay qiimo dalban doonto ciyaartoygan ay ku iibiso inkastoo ciyaartoygan heshiiska uu kula jiro kooxda Barcelona uu dhamaanayo dhamaadka xilli ciyaareedkan ama bisha 6 ee sanadda 2023. haddaba ciyaartoygan Memphis Depay oo markii hore isku dayday kooxda Barcelona inay iibiso ama xagaagii la soo dhaafay ciyaartoygan isku dayday inay ka fasaxdo kooxda xataa kooxda Barcelona ciyaartoyga Memphis Depay waxaa jiray wada hadal u dhaxeeyay kaasoo ay isku afkarteen labada dhinac in ciyaartoyga Memphis Depay uu la soo hadlo ama wada hadal uu la soo gaadho koox ka mid ah kooxaha qaaradda Yurub inta ka bacdi kooxda Barcelona ay ciyaartoygan hab lacag la'aan ha ku fasaxdo. haddaba hadda waxaa la sheegay kooxda Barcelona inay isbedeshay oo ciyaartoygan Memphis Depay ay hadda ka dalban doonto inay ka iibiso kooxda Manchester United haddii ciyaartoygan ay dalab ka soo gudbiso. ciyaartoygan Memphis Depay ayaa waxa uu kooxda Manchester United u ciyaaray 2 sano isagoo sanadii 2015 kaga soo biiray kooxda Manchester United kooxda ka ciyaarta wadanka Holland ee PSV Eindhoven. balse ciyaartoygan waxa uu awooday inuu 7 gool oo kaliya u dhaliyo kooxda Manchester United labadii sano uu ciyaaray isagoo 16 kulan u ciyaaray kooxda Manchester United. Memphis Depay kooxda Manchester United waxa uu ku soo biiray sanadii 2015 waxaana ka tagay sanadii 2017 halkaas oo uu ku biiray kooxda ka ciyaarta wadanka Faransiiska ee Olympique Lyon.
haddaba ciyaartooygan kooxda Lyon marka uu ciyaarayay waxaa ka mid ahayd waayihiisii ciyaareed mid ugu fiicneed oo ciyaartooygan waxa uu dhaliyay kooxda Olympic Lyon 76 gool sidoo kalena waxa uu caawiyay 50 gool isagoo u ciyaaray kooxda Olympic Lyon 187 kulan. haddaba ciyaartooyga Memphis Depay marka uu kusoo laabtay waayo ciyaareed aad u fiican ciyaartooygan waxa uu xagaagii hore si bilaash ah ugu soo biiray ama xagaagii sanadii 2021 si bilaash ah ugu soo biiray kooxda Barcelona isagoo ciyaartooygan u saxeexay kooxda Barcelona heshiis aan 2 xilli ciyaareed. haddaba heshiiska uu kula jiro kooxda Barcelona ayaa waxa uu dhamaanayaa xagaaga soo socda ama bishii 6 ee sanadan 2023 sidoo kale ciyaartooygan hal xilli ciyaareed iyo badh ayuu ciyaaray kooxda Barcelona halka xilli ciyaareed iyo badhka Memphis Depay oo jiray 20 sano waxa uu awooday kooxda Barcelona inuu 14 gool u dhaliyo isagoo kooxda u ciyaaray 42 kulan. waxaana la filayaa ciyaartooygan inuu dhawaan ka tagi doono kooxda Barcelona inkastoo ay mas'uuliyiinta kooxda Barcelona u sheegeen ciyaartooygan xagaagii hore inuu ka tago kooxda Barcelona sidoo kale aanay kooxdu ka dalban doonin kooxdii doonaysa ciyaartooygan wax lacag ah. haddaba kooxda Manchester United oo aad u doonaysa ciyaartooy iyo sidoo kale weeraryahan bedel ah ayaa hadda waxaa la sheegay Manchester United in ay shaqo ka hayso weeraryahankeedii hore ee Memphis Depay sidoo kale ay suuragal tahay kooxdu inay isku dayi doonto la soo wareegida ama dib u soo ceshashada ciyaartooygeedii Memphis Depay. dhinaca kale waxaa soo dhamaatay rajadii uga qabay tababare Zinedine Zidane tababarnimada ama xilka uu sugayay ahaa inuu tababaro u noqdo xulka qaranka Faransiiska kadib markii uu xiriirka kubadda cagta wadanka Faransiiska uu shaaciyay in heshiiska dhan u sameeyeen tababaraha xulka qaranka Faransiiska ee Didier Deschamps ilaa sanada 2026. haddaba Didier Deschamps kadib markii uu ku guuldareystay ama uu gaadhay finaalkii koobka adduunka ayaa waxaa jiray warar sheegayay tababarahan in xilka laga qaadi doono koobka adduunka ee sanada 2022 ka bacdi balse sidoo kale hadda waxaa jiray ama waxay hadda si rasmi ah u shaaciyeen mas'uuliyiinta iyo sidoo kale xiriirka kubadda cagta wadanka Faransiisku in tababare Didier Deschamps uu noqon doono tababaraha rasmiga ee xulka qaranka Faransiiska ee sanada ama Euro 2024 iyo sidoo kale tababaraha koobka adduunka ee wadanka Faransiiska sanada 2026. haddaba tababare Didier Deschamps waxa uu qabtay xilka xulka qaranka Faransiiska 9 bishii June ee sanadii 2012. Didier Deschamps intuu hayay xilka xulka qaranka Faransiiska waxa uu awooday inuu la gaadhay 89 guulood sidoo kale 28 bareejo iyo 22 jeer oo laga badiyay halka uu ciyaaray 139 kulan ama uu hogaamiyay xulka qaranka Faransiiska 139 kulan. haddaba xiriirka kubadda cagta wadanka Faransiiska oo markii hore la filayay inay xilka ka qaadaan tababare Didier Deschamps ayaa hadda waxay go'aansadeen sidoo kalena si rasmi ah u shaaciyeen in tababare Didier Deschamps uu noqon doono tababaraha xulka qaranka Faransiiska ee ilaa sanada 2026 sidoo kalena uu sii ahaan doono tababaraha xulka qaranka Faransiiska Euro sanada 2024 ka dhici doonta wadanka Jarmalka iyo sidoo kale koobka adduunka 2026 ay martigelin doonaan wadamada USA, Canada iyo Mexico. dhinaca kale kooxda Barcelona iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kooxda Barcelona oo waayihii ugu dambeeyay awoodda saarayay sida u heli lahaayeen ciyaartooygii bedelka u noqon lahaa kabtanka kooxda Barcelona ee Sergio Busquets kaasoo la filayo inuu ka tagi doono kooxda Barcelona dhamaadka xilli ciyaareedkan. haddaba waxaa jiray in ilaa 4 ciyaartooy oo ka kala ciyaara kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub ay kooxda Barcelona awoodda saaraysay in ciyaartooyda la soo wareegto inkastoo uu jiray khilaaf u dhaxeeyay madaxda iyo sidoo kale tababaraha kooxda Barcelona ee Xavi. haddaba waxaa jiray kooxda Barcelona inay awoodda saartay 4 ciyaartooy kuwaas oo kala ah labada ciyaartooy ee khadka dhexe uga ciyaara kooxda Chelsea ee kala ah N'Golo Kante iyo sidoo kale Jorginho oo dhamaanaya heshiiska ay kula jiraan kooxda Chelsea sanada 2023 bisha 6 ama dhamaadka xilli ciyaareedkan. sidoo kale iyaguna waxaa jira ciyaartooy kale kuwaas oo ka mid yahay ciyaartooyga khadka dhexe uga ciyaara xulka qaranka Spain iyo sidoo kale kooxda Real Sociedad ee Zubimendi halka uu ciyaartooyga Robin Neves isaguna yahay ciyaartooyga afraad ee diiradda u saaran kooxda Barcelona kaasoo la filayo inuu noqon karayo ciyaartooyga bedelka u noqon karaya Sergio Busquets. haddaba saddexda ciyaartooy ee N'Golo Kante, Jorginho iyo sidoo kale Robin Neves ciyaartooydan waa ay la soo wareegi kartaa kooxda Barcelona maadaama gaar ahaan ciyaartooyda N'Golo Kante iyo Jorginho uu dhamaanaya heshiiska ay kula jiraan kooxda Chelsea dhamaadka xilli ciyaareedkan sidoo kale ciyaartooyga Robin Neves isaguna uu dhamaanaya heshiiska uu kula jiro kooxda Wolverhampton sanada 2024 balse ciyaartooyga Zubimendi ee u ciyaara kooxda Real Sociedad sidoo kalena ciyaartooyga uu arko tababare Xavi inuu yahay ciyaartooyga ugu habboon ee sidoo kale la ciyaari karaya ama fahansan qaab ciyaareedka kooxda Barcelona uu ciyaartooygani xagaagii lasoo dhaafay ama sanadan ama xilli ciyaareedkan bilowgeedii uu heshiis kordhin u sameeyay kooxdiisa Real Sociedad ilaa sanada 2026 sidoo kalena kooxda markay ogaatay in kooxda Barcelona doonaysay ciyaartooygan ay kor u qaaday qiimaha heshiis jabinta ciyaartooygan.
oo haddii kooxda Barcelona ay isku daydo inay la soo wareegto ciyaartooyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Real Sociedad ee Zubimendi, waxaa looga baahan yahay kooxda Barcelona in ciyaartooygan ay bixiso qiimaha heshiis jebinta ciyaartooygan taasoo gaaraysa ama ah 60 milyan oo euro. haddaba kooxda Barcelona oo hadda maraysa xaalad dhaqaale oo aad u hooseysa ayaa isku day doonta inay la soo wareegto ciyaartooyda kale ay ku heli karto lacag la-aanta sida ciyaartooyga N'Golo Kante iyo Jorginho, iyo sidoo kale xataa haddii ay ku khasabto kooxda Barcelona inay sugto sanada 2024 ciyaartooyga khadka dhexe uga ciyaara xulka qaranka Portugiiska iyo sidoo kale kooxda Wolverhampton ee Ruben Neves. ugu dambeyntii haddaynu eegno kulamada ugu muhiimsan ee maanta la ciyaari doono, waxaa jira kulamo la ciyaari doono horyaalka wadanka Talyaaniga ee Serie A, sidoo kale horyaalka wadanka La Liga ee Spain. haddaba horyaalka wadanka Faransiiska iyo sidoo kale horyaalka wadanka Ingiriiska iyaga waxaa la ciyaari doonaa koobabka. horyaalka Ingiriiska waxaa la ciyaari doonaa koobka FA Cup-ka kaasoo halka horyaalka wadanka Faransiiska la ciyaari doono koobka wadanka Faransiiska ee Copa Faransa, waxaana ciyaari doonta kooxda Olympique Lyon iyo sidoo kale kooxda Marseille. balse horyaalada waxaa la ciyaari doonaa sida horyaalka La Liga iyo sidoo kale horyaalka Talyaaniga ee Serie A, oo waxaa ciyaari doonta kooxda Juventus oo martigelin doonta kooxda Udinese, halka kooxda Inter Milan ay booqan doonto kooxda Monza. ugu dambeyntiina horyaalka La Liga kulanka ugu muhiimsan ayaa waxa uu yahay kulanka kooxda Real Madrid ay la ciyaari doonto, sidoo kale ay booqan doonto garoonka kooxda Villarreal. kooxda Villarreal ayaa kulamadii ugu dambeeyay gaar ahaan kulamada ka dhacaya garoonkeeda ay ku martigelinayso kooxda Real Madrid. kooxdu waxay awooday inay dhibco badan kala hadho kooxda Real Madrid oo kulamada ugu dambeeyay gaar ahaan kulamada kooxda Villarreal ay ku ciyaarso garoonkeeda waxay bareejo la gashay kooxda Real Madrid. sidoo kale Real Madrid way ku fashilantay inay wax guulaha ka gaadho ama kulamada ugu dambeeyay bareejo ay u badnaayeen, balse kooxda Real Madrid maadaama hadda ay u tartamayso hogaanka horyaalka wadanka Spain ee La Liga, waxaa la filayaa inay isku day doonto kooxda la soo qaadashada 3 dhibcood.